kulan ballaaran ay isugu yimaadeen 720 ka mid ah maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo 2 ka mid ah dugsiyada sare ayaa maanta lagu qabtay hoolka shirarka ee magaalada Buuhoodle. kulankan ay soo qaban qaabiyeen ardayda iyadoo u dhalatay deegaanka Buuhoodle iyagu wax ka barta dalka dibadiisa. kulankan ayaa ujeedadiisu ahay sidii wax loogu qaban lahaa bahda waxbarasho isla markaasna loo mideyn lahaa macallimiinta iyagu wax ka dhiga deegaanka Buuhoodle. kulankan ayaa ka soo qayb galan ismo cuqaal culamaa diin wax garad iyo waliba bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaana ugu horeyntii daafur ku sameeyay kulankaasi gudoomiyaha ururada waxbarashada Jamaal Ciise Maxamed. kulan ballaaran oo aqoon-yahaniinta iyo waxgaradka deegaanku ay isugu yimaadaan markhaatina ka yihiin annana aanu goobjoog ka noqono inaanu isugu yeelno bahda waxbarashada ee gobolka Cayn oo dhammaystiran. waxaa sidoo kale mahad iska leh waqtiga ballaaran ee na saaciday iyadoo ay joogaan 720 maamule oo dugsi hoose dhexe ee gobolka Cayn sidoo kalena ay ka soo qayb galeen kulankani 2 maamule sare ayraada warshiyadu waa maqan yahay labada dugsi sare ee gobolka ama magaalada Buuhoodle sidoo kale culamaa diin uqaal ganacsato iyo waxgarad ay joogaan. waxaanu jecelnahay balxooga introduction anagu maxaanu nahay maxaa shirkan yahay maxaanu doonaynaa danta aanu leenahay maxay tahay. marka hore waa in aan isfahanno sidaan u qaban doono iyo waxaanu doonayno ama macallimiinta deegaanka aan la doonayno inoo faahfaahin doona. laakiin inta aan ka horeysiyo haddii aqoon la yiraahdo aqoon waxa looga haraa ninka dhiga ama ninka dhigta taasoo macnaheedu yahay wa kullu dhi ilmin alim. Allah subhanahu wa ta'ala waa tuiri aqooni ma dhamaato ka dhiganayaana kama dhamaato ka dhigayana kama dhamaato. marka macnaheedu waxay tahay sideenu wax wada noqonaa gobolkeena u dhisnaa deegaan ahaan aynu dadka uga muuqanaa tirada yar ee dugsiga sare ka baxaysa ee deegaanka sideebaynu u kordhin karnaa tirada yar ee dadka dibadda jira ee jaamacaduhu ay mid iyo laba ku yihiin magaalada Buuhoodle ama gobolka Caynba sideenu u kordhin karnaa inaga dadka ka tira yar mise inaga dadka ka tamar yar waa su'aal loo baahan yahay in la isweydiiyo. maantana waxaan rabaa in markhaati loo noqdo magaalada ama gobolka ama degmada Buuhoodle in nawaaxigeeda dhibaato waxbarasho ayaa ka jirta oo jiitamaysa taasoo aamina dalka ay macallimiintu sameynayaan ama faa'iidada ay macallimiintu hayaan iyadoo aan dadweynuhu aysan si wacan uga faa'iideysan. 3 qodob aan ku soo koobay iyadoo aan shirar hore ka sheegay dhibaatada ma bulshada reer Buuhoodle ayaa koow ka ah dhibaatada mawaalidiinta ardayda dhashaa koow ka ah mise macallimiinta ayaa koow ka ah. waa inaynu kala saarnaa aqoonteena iyo tayadeena ardaynimo ama waxbarasho meesha ay ka dhaqaaqi laadahay. annagu ma nihin bahda caafimaadka laakiin bahdii waxbarashada ardaydii ayaa nahay. waxaan filayaa kuwa nagala mid ah inay insha Allah caafimaadkan u kici doonaan waa labada ilood ee deegaanka u baahan yahay la hormariyo. waxaana sidoo kale aan macallimiinta iyo waxbarashada deegaanka aan ku boorinayaa in waxbarashadu ay tahay wax free ah oo aan xadud lahayn haddii meel kasta ay uga yimaadaan ay qaataan waayo waxaan dadkooda ayaa u baahan dadka u keenayna waa wax Ilaahay ugu soo dhiibay. sidoo kale waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay maamulaha dugsiga hoose dhexe Darwiish ee magaalada Buuhoodle Cabdiweyne isla markaasna mahadnaq u soo jeediyay ardayda iyo wax ka barata dalka dibadiisa. sidoo kale wuxuu maamuluhu saxaafadda u akhriyay macadada ama heerka waxbarasho ee ka howlgala magaalada Buuhoodle. maanta haddii ayan kalsooni jirin haddii ayan midnaba jirin may timaadeen 720 macallin oo dugsiyada hoose ee aasaasiga oo 8 magaalada gudaheeda ay tahay 8 hoose dhexe Abubakar Darwiish Al-Furqaan An-Najaax Imaam An-Nawawi Ilays waa 8 dugsi oo magaalada gudaheeda ay dhamaantood iyo 720 kuba ay maanta seminar intaan isugu keenay u fadhiyaan ay ku baranayaan xirfadda iyo aqoonta lagu barbaarinay waxa way ardayda maamulayaasha dugsiyada sare labadiiba oo ay fadhiyaan haddii kalsooni jirin. sidoo kale waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay maamulaha Howd Secondary School Sheikh Muqtaar waxa uu hadalkiisa ku bilaabay yana waxaan filayaa haddaan khaldanayn inuu caafimaadka yahay wasaaradda dhaqdhaqaaqa aynu leenahay way ugu dhaqdhaqaaq badan tahay ama way ugu ballaaran tahay ama way ugu shaqada badan tahay waxaynu maanta u fadhino dadka fiil waxtarka ay noo qabteenna waynu aragnaa in yar bayna la joogeen intii waa shaqaynayeen horumarku waxaan isleeyahay intaas uu jiraaba qofku inuu horay u socdo oo wax ku fekero oo dadaalkeeda laga helo buu jiraa tawfiiqdana Ilaahay baa ya Allahna waafajiyo. waxaan isleeyahay oo aan leeyahay qoladan inoo timi oo aan isleeyahay awood ballaaran baa
gabagabadii kulankan ayaa dhalinyarada iyo wax ka barata dalka dibadiisa iyo weliba dalka gudihiisa waxay saxaafadda u akhriyeen heerkooda waxbarasho waxa uu yahay iyo weliba waxyaabaha ay ka bartaan dalka dibadiisa waxayna hadalkoodii ku bilaabeen. waxaan wax ka dhigtaa jaamacad ku taala Addis Ababa New Generation waxaan dhigtaa qaybta computer engineering University College magaalada Addis Ababa waxaan bartaa human resource management. bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu alaykum. class هذا بروده هذا حاجة عقلتها بورا معمول University وحالتها فقط full lecture. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو يوسف أنا قد معلم يوسف تضل باي كرنا معلمين توصل كرنا يبغى واحد برشة هذا نديب وحامد بلا واحد برشة كلا أو فيلد كلا أنا هاي تيجي ما بلا باي واحد يتعرض قالها وحنا كبر تاج جامعة كطلع أديس أبابا مقعي هذا Unity University. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو فهد عبد الرحمن عواش أنا أرددي إلى ولدي إلى دكسي السرع كقلم شبيه أما كبحي مقالة بوهله إنك waxaan taa jaamacad ku taalo gobolka Awdal garaan magaalada Boorame oo lagu magacaabo American University department-ga ama faculty-ga dhigtaa waa computer science. Awdal Boorame waxaan dhigtaa faculty-ga medicine. Assalaamu alaykum. magacayga waa Cabdirasaaq Cabdi Axmed waxaan dhigtaa jaamacadda Bariga kulliyadda sayniska. kulankan maanta ay isugu yimaadeen ardayda iyo wax ka barata dalka dibadiisa iyo weliba maamulayaasha dugsiyada hoose dhexe iyo weliba kuwa sare ee magaalada Buuhoodle ayaa isagu kulankii ugu horeeyay ee dhexmara ardayda iyo wax ka barata dalka dibadiisa iyo weliba macallimiinta iyo ka howlgala deegaanka Buuhoodle. kulankan ayaa isagu kulan lagu mideynayay isla markaasna dalad lagu sameeyay macallimiinta iyo wax ka barata dalka gudihiisa. Cabdi Weli Cabdi Xiis ee telefishinka caalamiga Hon Cable TV magaalada Buuhoodle.